يتناوذ أمنا أحدي وذا مرنو ميوفيني نفسي أولم بانكو البابيا عياركو آميني indhahayga ooyayo yartii aynigeed oo ilwaasanayd erayada galgacal tii odhan jirtee oo wixii jannada nifka ugu jalaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومر كله iyo muuqaal cusub iyo meel cusub waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan caafimaad wax ka fiican oo ilaahay la iskaga rajeeyaa ma jiro waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan oo aad faraxsanaataan oo farxaddu waa muhiim haddaad faraxsanayn waxa ma qabsan kartid waxaan rajeynayaa inaad wada faraxsan tihiin maanta saad arkaysaanba waxaa ila jooga Cumar oo loo yaqaano Cumar Siyaar Sabca inta inaan muuqaalkeena ama barnaamijkeena aynu socono maanta aynaan gudagelin waxaad ka codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saartaan oo like garaysaan asxaabtiina aad la sii wadaagtaan waa mahadsantihiin sidaa fiican ay noo daawataan asxaabta ku xidhan channelka midda qulaatee aan asxaabta channelka ku xidhan u sheegnaa waxa weeyaan viewskeenu aad u fiican yahay laakiinse xagga subscribe-kan wadaayin in yar laydinka rahaysto markaad insha Allah daawataan subscribe-ka waxaa idinku dhibi mayse noo saara haye Cumar ku soo dhawow Somali Media waan ku dhawayahay Maxamed waad mahadsan tahay sidaad igu soo martigelisay channelkaaga aad iyo aad waan ugu faraxsanahay waana ii sharaf channelkaaga inaan ku soo qayb galo asxaabtina waxaa leeyahay subscribe-ta like-ta share-ta insha Allah idinku baniga sugina kula dhaca insha Allah farxadiina waa farxadeyda ayaan leenahay asxaabay marka waayo aad u baasatay waxaad bad duwanaa barnaamijkeeni ahaa ka sheekay wixii ku soo maray oo waxaad la wadaagtaa waxyaabihii ugu qasalka badnaa ee ku soo maray inuu majaajileystaana waatay waad mahadsan tahay Maxamed horta dee adduunkan wax walba waad ku arkaysaa waayo waa adduun waxa la nin kastoo nool maxaa ku laaban farxad iyo murugo oo la kulmaysaa labadaba balse laakiin asxaabta waxa leeyahay mar walba farxadiina ka taliya wax walba ku faraxsantiina annaga ayay idin soo gudbin doona insha Allah annaga oo Somali Media dawaka wixii kugu la yaab koodnaa aragtay amba la cajibtay waxaan la taajibay wallahi waxyaalo fara badan oo ku qoslay jiraan laakiin maanta igu darneed ay igu qosol ka badneed waxay ahayd maalin aniga oo suuqa socda ayaa waxa dhacday in maalin baa waxa dhacday anagoo suuqa ku socda ayaa waxa iga soo baxay nin marka ninkuu waa leeyahay anaga waxaan moodayaa nin hagaagsan oo iska labisnaa kadibna ninkuu daba socday waa yaabana ninku muxuu ka daba socdaa uma ilaahay laakiin anaga waxaan moodayaa inuu waa leeyahay ninku deetana ninkii waa kaday waxaan ku yiri saay daba dhigta bakordi geeriyada ninku walaa ninku waxay kugu la yaabka badnaa aragtay nin waan u baahan inaad arag ayo waasatay kolley TikTok-gaaga amba waxyaabaha kale baraha bulshada WhatsApp-kaaga wax soo dhigtaa adigoo heesa qaadaya bal asxaabta waxaan ka rajeynaynaa laba heesood amba inaad hees u qaado Maxamed waad ku maadsan tahay wallahi horta xagga heesaha iskuma badnin laakiin taa asxaabta maadaama ay asxaabtu u baahan qosol iyo waxyaalo fara badan waan u qaadi doonaa xabada heestana waan u qaadi doonaa insha Allah wayde sida heesta waxa qaada la foole heestana insha Allah waan u qaadi doonaa waxyaalo saasto dabacsanida hadalkiyo daganaan su'inayahay oo hadareekiyo kaga doodka haweeka
sidahan jeceliyo dawadayda inaad tahay adigoo dule jiran bartanka dareema deqay waan ku jecelahay dabxigaaga wacaaniyo dulqaadkiyo xishoodkada waa waxaa lagugu doorbiday daa'imkeen kuma sharafkuugu doorbiday adigoo dileer jiran bartanka dareema deqay waan ku jecelahay maxamedow maanta maadaama waxaan ku yidhi jalankaaga igu qabatay dee waa qasab bay igu noqotay in asxaabta inoogu qosliyo insha allah exactly aad baad u mahadsan tahay dadkaaguna waa diintee aad iyo aad baad u codmacaantid helitiri waad leedahay akaas waad ku mahadsantahay heesta koowaad qaada heesta ya qaadawati la fole la fala qaada marka heesta maxaa ku jeclaatay in marar kale aad u qaadaya whatsappka waan kugu arkay tiktok waan kugu arkay maxaa inaad heesta qaado maxaa sababeyna jacayl kaagii hore aad u qaadaysaa maduufa adiga kugu qaada waxaa u qaadaysaa heesta dee waxaan u qaadayaa horta heestan waa ammaan dee maadaama aniga dee layga maqaye dee waxaan ku yidhi meel dheer layga jiro asxaabtii waxaa leeyahy dee meel dheer baa layga jira igu soo dacay inay laysoo dhawaada insha allah maqati gabadhaad markaa haa may xabaddan jeclaado dee way iga yar fogaatay ayaa leeyahay asxaabta haye waay waa mahadsan tahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad kaaga mahad celinaa waqtigaaga fiican asxaabta codkiisa qiimaysaan oo dee ay commentiga kasoo hagaajisaan wadaadku wuxuu aad iyo aad u jecel yahay haddaanu barnaamijka gabagabadiisa marana intaynaan heesta labaad ee barnaamijka kusoo gabagabeynaysaa inaan u gudagelin asxaabta bal maxaad in yaroo qosala aba maxaad u wadaaba maanta markii ugu horeysay channel kasoo muuqato maxaad qosalood u wadaaba jaajeystaan waata kula socda tiktokaaga way soo falowarskareynayaan waad mahadsan tahay maxamed aad iyo aad baad umahadsan tahay maadaama dee igu soo sharafta qaaday jalankaaga aad iyo aad bay sharafii tahay waad mahadsan tahay baan kuleeyay saaxiib anigu dee horta asxaabtayda waxaan jecelahayna mar walba aan jeclaado waayo asxaabtayda murugadoodu waa murugtayda farxaddooduna waa farxaddayda maadaama asxaabtaadu aad iyo aad ugu mahad celinayo waxaan leeyahay dee maanta haddaan qosol iga dalbatay waan qoslinayaa dhammaan asxaabta manaheed heestii ugu dambeysay ee barnaamijka lagu soo gabagabeynayay in asxaabtu qadarjeena iyaguna ay dee wadaagayaan hees labaad heestan ninkii qaadi jiray waan loobay balse laakiin waan qaadaya ninkii qaadi jiray heesta ma karaysid waan loobay aniga asxaabta kuu sheegna cidda qaadi jirtay heestii maxay ahayd niyow heestii cumar dhuulaan qaadaya cumar dhuule cali ninka anigu dee asxaabay maadaama asxaabta dee maadaama aan iska ahay nin weyno dee iska odayo dee iska xaajiya heesihii hore anigu kastaan heesaan dambe aan dhegeysanba haddana waxaa iska dhegeystaa heesihii hore cumar dhuule maxamed mooge maxamed axmed tilciyo heesihiis baan dhegeystaa horta dee kuwan cusubni way iska fiican laakiin kuwii hore way ka yarayaan heese macaan yihiin maadaama dee heesihii hore aanu iska jeceliyayba cumar dhuule yatan aawadeed oomana axdi waada marno meofine nafsi oolan baan ku albaabaya ayaarku aamini indhahayga ooyayo yartii aynigeed oo ilwaasanayd erayada galgacal tii odhan jirtee oo wixii jannada nifka ugu jalaa ayaarku aamini indhahayga ooyayo markaa waxaad u diraysaa jacaylkaagii ma waxaad u diraysaa dadweynaha ku daawanaya maxay heestan dareen nooceyay kula mid horta hees walba dareen bay ku socontahay heestan waxaa ku jeedaa dee sidan filaya hees nafsi yartan aawadeed oo mana axdi wada galno nafsi bay ka hadlaysaa heestan marka waxaan leeyahay saxaabtayda ku xidhan jalankamada Somali Media dee waxaa nafsiga la yidhaha layska ilaalinayaa asxaab inan iyo wiilba insha allah amaanahende haddaad waasa tahay
okay aad buu mahadsan yahay cumar CR oo la naanayso CR 7 waa ku maasantay waqtigaaga fiican saad nagu soo hortay asxaabta qaaliga meel kasta joogtaan mar labaad iyo mar saddexaad idinkana waa idin salaameynaa waxaad ka codsanaynaa in haddii markii idinka horreysay muuqaalkan aad aragtaan ama wejigayga inaad channelka subscribe ka saartaan aad like garaysaan asxaabtiina aad la sii wadaagtaan waa mahadsantihiin meel kasta joogtaan waxay idin rajeynayaan caafimaad qabtaan bye bye